and I'm so grateful for Dr. Ahmed Hersi for introducing me to Professor Abdullahi Sheikh Hassan of Red Sea University and to build a relationship with the university in order to improve the Somalian education system. macadkaas waxaanu heshiiskan wadagalo ku saabsan yahay inaan tacliinta quality-geeda iyo tayadeeda ka wada shaqeyno. I'm absolutely delighted to tell you about our new partnership with Red Sea University in the Puntland state of Somalia. waxaan rajeynaya in wax badan kusoo kordhin doono jaamacadda iyo goobaha kale waxbarashada ee ku yaala Puntlandba dadku inay ka faa'iideysan doonaan. We will be building the future of Somalia and we will be working with the university, inshallah. jaamacaddu cilaaqaad badan bay leedahay. waxay la leedahay jaamacadaha waddanka ku yaala iyo kuwa bariga Afrika ku yaala iyo kuwa caalamka carabta ku yaala iyo kuwa kale oo qaaradaha Yurub iyo ku yaala Asia intaba. haddaan si gaar u taabto dhawaan waxaan heshiis la galay macad la yidhaahdo EPUK la yidhaahdo Education Partnership UK. macadkaas waxaanu heshiiskan wadagalo ku saabsan yahay inaan tacliinta quality-geeda iyo tayadeeda ka wada shaqeyno, gaar ahaan waxbarashada dadka waxbaraya dadka hadday yihiin macallimiinta secondary-ga iyo macallimiinta jaamacadaha iyo macallimiinta in si professional macallimiinta loo tababaro. barnaamijkaas waxaan rajeynaya in waxbarashada wax badan ka bedeli doono. I have a team of experts that are both guiding the project and will deliver on the project. And the experts include Dr. Abdul Wahid Khan, former Deputy Director of UNESCO. I also have Dr. Georgios Vurnas, who heads on Quality Assurance. I have Ms. Sandra Rennie, who specializes in teaching qualifications to over 1,500 teachers across the world. And I have my colleagues which are involved in various expertise areas such as safeguarding, etc.